warar dheeraad ah ayaa laga helayaa kooxo ku hubeysnaa baastoolada oo fiidnimadii xalay xaafadda howlwadaag ee magaalada Beledweyne ku dilay sarkaal ka tirsanaa ciidamada booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle oo ka howlgalayay halkaasi. sarkaalka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray laba xidigle Axmed Xasan Biriq oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada booliiska Beledweyne, isla markaana waxaa la toogtay xilli uu ku sugnaa xaafadda howlwadaag ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. dableydii dishay sarkaalkan ayaa markii uu dhacay falka goobta isaga baxsaday, balse ciidamada ammaanka oo howlgal ka sameeyay xaafadaha magaalada Beledweyne ayaa toogtay laba ruux oo la sheegay inay ka dambeeyeen falkaasi lagu qaarijiyay sarkaalkaasi ka tirsanaa booliiska maamul goboleedka Hirshabelle. wararka ayaa waxa intaasi ku darayaan in ciidamada Beledweyne ay sidoo kale gacanta ku soo dhigeen saddex ruux oo lagu tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen dilka sarkaalka. intaasi kadib laamaha ammaanka ayaa waxa ay faahfaahin ka siiyeen warbaahinta sida uu falkaasi u dhacay iyo cidda loo soo qabtay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. sarkaal booliis laba xidigle booliis ah Axmed Xasan Biriq, Allah u naxariisto, gacanka xaq daran baa dishay. dagaalqayaasha dilina waa kuwaas. cid kasta oo isku dayda asaga maxaa leenahay Allah u naxariisto, gacanka xaq daran dishay waa asiga jannat firdawsi Allah ka waraabiyo. dagaalqayaasha dilina waa kuwaas, ayagana jawaabtooda waa ka jawaabnay oo ciidamada qalabka sida ka jawaabay. waa kuwaas ayagana meesha yaallo. mid kasta oo isku dayay dhabar qaba oo in fal noocaas ay fuliyana waxaan rajaynaynaa asigana inaan gacantiisa oo kalenta jawaabtiisa isaas noqoto. bismillah, inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxa dhacay caawa geeri naxdin leh sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa kooxo dhagar qabayaal ah oo kooxaha caadaystay dhiigga ummadda Soomaaliyeed waxay ku dileen asaga oo jooga goob u dhow saldhigga booliiska galbeed. ilaahay mahadii isla markiiba waxa ficilkii ka jawaabay ciidamadii saldhigga galbeed ku sugnaa iyo taliyii saldhigga oo ka duulaya duulaanka ay ku soo qaadeen kooxaha dhagar qabayaasha ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta. sidaa darteed isla markiiba waxa ilaahay suuro geliyay in caruurtii yareed ee la soo qalday ee guryahooda laga soo qalday ee dhagar qabayaasha ahaa ee waalidiintood laga soo qalday akhlaaqda ka halawday in halkaas la soo dhigo meydkooda. waxaan leenahay aan fariin u dirayaa kuwa la soo qaldi doono akhlaaqda ka dhuntay caasi waalidiinka ah ha kuwaana qaataana kuwaan ha arkaana. dhagar qabayaashan markay sarkaalka dileen kadib waa ay dagaalameen. ciidanka geesiyaasha ayaa ka jawaabay dagaalkii ay dagaalameen. waxay gaaray dagaalkooda in ay bambooyin tuuraan xitaa. waad arkaysaan bustooladaha laga soo qaaday oo ay wateen ay ku dagaalamayeen. bambooyinka ay wateen qayb ka mid ah qaybtii ay rideen maahan qaybtii kaleento. ilaahay baa mahadda iskale. labadii dhagar qaba iyo labadii bustoolad iyo bambooyinka ay wateen ee sarkaalkii booliiska ahaa ee qaymaha badnaa ee lagu qaaliga ahaa dilay waa caruurta nuucaas u taala akhlaaqda ay ka dhuntay ee ummadda muslimiinta loo soo diray. waxaad ogtihiin diinteena islaamka waxa ugu muhiimsan ee ay xaaraantimaysay oo ugu qaalisan waa dhiigga muslimka. in inta qof muslima laga soo dhaadhiciyo inaad soo disho dhiiggiisa aad ilaahay ku raali galisaa ma ahan wanaaga akhlaaqda ka dhuntay. akhlaaqda la diin sheega waxa waaye inaad wax xun qaadataa oo aqbasha akhlaaqdu ka dhuntay. waxaan leeyahay caruurta la qaldaya ka waantooba digniina idin diraynaa kaalay imaada. waxaan rabaa inaan hal maada raaciyo shacabka Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waad aragteen kooxahan arxalaabayaasha aqoonyaanka aan rabin, sarkaalka aan rabin, culimada aan rabin, cid ay rabaan aan la arkin, anshaxa aan lahayn in aad mataqaanaa kaalin ka qaadataan oo aad ciidanka ka caawisaan meeshay istaagaan ay koob shaah ka cabaanba inaad sheegtaan. fariinta shacabka Soomaaliyeed u dirayna waxay tahay caruurtiina ka warqaba, canugaada ka warqab meesha jiro. haddaadan canugaada ka warqabin annaga ka warqabi doono markaan soo qabanno ama aan wadada soo dhex dhigno hadhihin canugayga awliyo wahaaye shaqo igu maqnaaye shaqo kugu maqnaaye istuubud wuxuu ahaa akhlaaqda ka dhuntay. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa horay marar kala duwan uga dhacay dilal qorshaysan oo loo geystay askar saraakiil ciidan nabadoono iyadoona dhawaan magaaladaasi lagu dilay nabadoon caan ka ahaa gobolka Hiiraan. Salaad Maxamed, Soomaali News TV, Muqdisho.
dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helaya adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxalladeeda dahabshiil hawlfudaydiyahaaga maaliyadeed